السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آد بان idin salaamahaya waa Axmed Boos. Kilibtan aan u bixiyay waxubso mahmaha Soomaaliyeedna ay ahayd hubsiina hal baa la siistaa ila daawada kuna soo dhawaada. Albaabkay soo garaaceen laba nin oo labisan FBI baan nahay. Maxaa idinku dhacay baan idhi waa soo daahdeen. runtana waa u sheegay qarax baan rabay inaan sameeyo Islamic Centerka oo gurigayga u dhow jidka dhinaciisa baan rabay inaan qarxiyo intaan dili karana dilo. barbaarnimadaydii Rambo baan daawin jiray filimkiisa. Rambo nin khatara buu ahaa, nin laga dambeeyuu ahaa, geesi aan gaban buu ahaa. shiishkana meeshuu raba la hela, sidaasaan rabaa inaan noqdo. markaas baan ciidamada qortay, kumaandooskaan ku biiray. waan xasuustaa xabaddii ugu horraysay oo igu dhacday saacaddaan eegay. waxaan idhi sanadkan saacaddan oo kale iskuulkaan joogay, galaaska ingiliishkaan ku jiray. meelo badan baan ka soo dagaalamay. Middle East baan ka soo dagaalamay, Soomaaliya, South America, Philippines. wixii igu daraa waxay ahaayeen carruur dhimatay. waa inaan saaxiibbaday garab istaago. calaamaddaas aad arkaysiin oo halkaa ku sawiran ma saaxiibbadaydii dhintay. waxaan ku joojiyey 26 dhimashada. ciidan markaad tahay way adag tahay inaa hilmaantid wixii ku soo maray, way kugu soo siyaadaysaa. wayna adag tahay sidaad u demisid. xasuustaada dib ugu noqo, ii faahfaahi sheekada. maalin waxaa jirta anigii xaaskayga wada socon dukaan la yidhaahda DSW ku jirna. baan kor waxaan ka arkay 2 gabdhood oo xijaaban dukaankayga. waan ooyey. ilaahay baan waxaan ka baryay ilaahay inuu igu aadiyo kuwaan inaan qoorta jabiyo. xanaaqii baa iga baxay, nacayb baa i buuxiyey. inaan qarxaan ku sigtay. waxaan gaaray heer aan khamre isku daldalo isbuucii 2 maalmood. waan tashaday. waxaan ku tashaday inaan qarax sameeyo, gurigayga aan qarax ku samaysto oo aan ku qarxiyo meesha muslimiintu iskugu yimaadaan Islamic Center. 200 iyo ka badan oo dhimashiya dhaawaca. sidaas bay ahayd taladay. waxaan arkay jaanis ii bannaan inaan waddankayga u sameeyo. meeshaan ka imid waan ogahay in la i xiri doono, xabsi aan ku dambayn doono, oo cirbad suna laygu dili doono, laakiinse dan kama lihi. gabadhaydaa timid maalin guriga oo fasalka 2 dhigata. waxay ii sheegtay wiil u dhowaa inay hooyadiis ay u timid oo xijaaban oo dhar dheer oo ilaa lugaha jooga qabta oo indhaha keliya laga arkahay. markaasaa miyirkii iga tegey. wax alla wixii afkayga ka soo baxaan waxaysan weligeed maqal baan idhi. waxba way oran weyday. indhihii baa soo baxay, indhihii baa waaweynaaday. waxay ii mooday qofka adduunka ugu waalan inaan ahay. waa gabadhayda yaray. waxay oran jirtay aabbahay saaxiibkayga midig. waan arkay wejigeeda inuu su'aasha jacaylku ku jiro. markaas buu waagii igu baryey. waxaan go'aansaday dadka muslimiinta oo nala deggan hal mar bal inaan ku noqdo. waxaan tegey meesha muslimiintu iskugu yimaadaan, masaajidkaan tegey. qaybta kabaha nin kaba ku siibahayaan arkay. qoslay. wuxuu yidhi maxaan kaa caawiyaa? haa, waxaan rabaa inaan islaamka wax ka barto. kitaab qur'aana buu siiyey, soo akhri buu yidhi. waxaa su'aal qabtidna noola imow. intaan akhrinayo waxbaan ku arkay. haa, waa tan, halkaan ii micneeye. waa la ii micneeyaa. marba marka ku xigta waan soo toosay. hadalkaa idiin soo gaabiyo. 8 isbuuc ka bacdi waan muslimay. waxaan ahay muslim, ciidamada soo maray, Maraykanimadiisana ku faraxsan.